Qaybtii saddexaad labada eey madow iyo walaalaha. Habeenkii saddexaad boqorka kursigiisa wuu kasii jeestay ama wuu kasii faraarsaday. Qalbigiisa wuxuu rabay inuu ogaado sirta ka dambeysa labada eey madowga ah. Shahrazad waxay bilaabday cod hoose oo qarsoodi ah. Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa odaygii labaad wuxuu yiri labadan eey madow waa walaalahayga. Boqorku wuu yaabay sidee bay eey ku noqdeen. Odaygii ayaa neef dheer qaatay. Waxaan ahayn saddex walaalo ah oo ganacsada ah. Waxaan bilaabnay inaan wada shaqeyno laakiin walaalahayga qalbigooda waxaa galay maseer iyo hunguri. Maalin maalmaha ka mid ah waxay ku qanciyeen inay wada galaan safar badeed oo ganacsi ah. Laakiin bartamaha badda iyagoo iga masiirsan hantideedii waxay igu tuureen baddii. Boqorka indhihiisa way kala baxeen wuu yaabay laakiin maanan dhiman. Odaygii wuu sii watay. Durba jiniid qurux badan ayaa i badbaadisay. Waxay ii sheegtay inay iga heshay daacadnimadeedii. Jiniidii waxay igu tiri walaalahaaga khiyaanaday sameeyeen waa in la inqaabaa waana inqaabi doonaa. Waxay isla markiiba ka dhigtay laba eey oo madmadow ah. Laakiin aniga waan bariyay waa walaalahayga hadilin ayaan dhahay. Jiniidii waxay ku jawaabtay waxay ahaan doonaan eeyo ilaa iyo muddo 10 sano ah si ay cashir ugu bartaan waxay sameeyeen. Makhluuqii jiniga indhihiisa dabka lahaa wuu aamusay. Runtii sheekadani waa mid la yaab leh. Waxaan ka dhimayaa 3 meelood meel kale. Hadda ganacsadu wuxuu helay 2 meelood meel oo loo cafiyay dambigiisa. Laakiin waxaa soo haray 1 meel oo kaliya. Isla waqtigaas oday saddexaad ayaa ka soo muuqday meel fog. Wuxuu watay faras. Indhihiisuna waxay ahaayeen kuwa qarsoodi xambaarsan. Wuxuu yiri sheekadaydu waa tan ugu yaabka badan dhammaantooda. Laakiin waaga wuu bariyay. Boqorku isagoo neefta qaban la ayuu ku dhawaaqay baya maxaa xiga. Shahrazad waxay si degan u tiri haddii boqorkii ogolaaday habeenka xiga ayaan sheegi doonaa sheekada yaabka badan. Boqorkii mar kale ayuu ka noqday go'aankiisa oo ahaa inuu dilo. Habeenkii saddexaad way badbaaday. Odayga saddexaad maxaa qarsoon sheekadiisa maxaa ku qarsoon ganacsaduhu ma badbaadi doonaa makhluuq ma cafi doonaa mise dhiig badan ayaa daado doono. La soco qaybta 4aad. Markaad kugu horeysa hadee tahay aad aragtid muuqaalkan nolol saaxiib qaybta faalaha ama qaybta commentiga wixii fikirkaaga ah ka dhiibo.